حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا سكن طيبا من سكن طيبا. kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka booqashada madaarista diiniga. barnaamijkan waa barnaamij aan ku bidhaaminayno halganka ballaaran oo ay ku jiraan madaaristu kaas oo ku aadan fidinta diinta islaamka. qaybtan waxaan ku eegi doonaa mu'asasatul kaafi liintaajil culamaa almu'ahaliin oo ah mu'asasa u taagan in ay bulshada ka oontirto dhammaan culumta shareecada. daraasada mu'asasada ayaa si rasmi ah u bilaabata 7 subaxnimo waxaana ay socotaa ilaa 5 galabnimo isbuuca oo idil. waxaan booqanay xarunta mu'asasada oo fadhigeedu yahay xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabadda, annagoo muuqbaahiyeena ku jihaynay fasalada kala duwan ee mu'asasada kuwaas oo ay xaadir ku ahaayeen guud ahaanba ardada oo laga dheehan karay diyaar garowga ay ugu jiraan sidii ay u hanan lahaayeen duruusta ay mu'asasadu u bixiso sida maalinlaha ah. si gaar ah waxaan muuqaalbaahiyaha ugu dugnay 2 ka mid ah ardada oo ku wada sheekeysanayay luqadda Carabiga ah si ay u soo bandhigaan aqoontooda. من منعك أن تذهب إليها؟ أنت تعلم أحوال. لا أعرف أحوال ما في الأحوال. لا أعرف بل سألتك أي صور منعك أن تذهب إليها؟ السبب الذي فرغت منها يا شيخ، السبب الذي فرغت منها يمنعني أن أرجع إليها. أن ترجع إليها منعك الصور. نعم. ما هي الصور؟ يا شيخ حدثت كل ستين سابقا تسألني ما طلبت. ألا حدثت وتحدثت لك قصتي في حريرة. weli daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka booqashada madaarista oo idinkaga imaanaya warbaahinta mataanaha ah ee hooyiga culummada iyo Kambala TV. Sheekh Cabdijaliil Xuseen Axmed oo ah maamulaha mu'asasatul kaafi ayaa faahfaahin inaga siiyay qaabka ay wax u baraan dadka, waxaana uu sheegay in ay bixiyaan gabi ahaanba fanniyada kala duwan ee diinta, isagoona intaa raaciyay in ay ardada u sameeyaan isla xisaabtan dhab ah iyagoona ardada dusha uga dhageysta kutubta qaarkood. sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu hadafkoodu yahay sidii ay u soo saari lahaayeen culumadii hoggaanka u noqon lahaa bulshada biri. waxaa idinkaga mahad celinaya ustaad Kambale barnaamijka quruxda badan oo ayaanta ah wadaan madaarista iyo mu'asasooyinka iyo goobaha diiniga aad ku soo booqanaysaan. inta kadib mu'asasatul kaafi waxa ay dadka bartaa ama ay dhigtaa قسم الشريعة الإسلامية شريعة الإسلام كفنون كلا دوان يا مادوين كلا دوان هذا أهم لهذا فنون اللغة العربية هذا سيد النحوية يا صرفية يا بلاغة يا علم العروض يا قوافية يا فنون الشريعة العادية هذا سيد تفسير كفقه يا حديث كي يوحي الله المامة مركا الله المالة مركا أنت هذا حوج إيسار هذا إلهي مهديسة وحنكو صدرنا قيبت القرآن كا وتحفيد كي دتك واوين يدتك يرك أنت بقى. inta waxaan ku dari lahaa ustaad Kambale anaga xoog waxaan saarnaa mu'asasada dhowr arrimood waana baahi jirta way oo aragnay. waxa kamid ah ardayga markuu imaado oo meeshan mu'asasada uu imaado waxa la laqbahan ka barnaa laqbahan xoog saarnaa. laqbuhu wuxuu ka dhigan yahay waa meesha hikaada iyo kiciska marka quraanka la joogo baahida loo qabo oo kale ayaa markii shariicada la baranayo baahida waxa loo qaba arday isasaarka inuu aad u yaqaan. laqbaha markii aan ka dhisna waxaan hadana ku dadaalnaa taswiirta si wax u suureyn lahaa masaa'isha inuu barto ardaygu. waxaan aragnay arday aan waxba laqbay karin laakiin wax suuray kara. waxa jira arday waxa weeyaan laqbihii way yaqaana laakiin suuradii ma hayo. marka laqbahan barayna waxaan ku xijinaa la marka labaad waxaan oo taswiirta si mas'ala u suureyn lahaa oo dadka uga dhacsiiraa. saddexaad waxaan sameynaa mudaalaca waxa la ayaan marnaa sida wax loo daalacdo big waxa loo diray 3 sadar 4 sadar 5 sadar big baal ila 10 baalood marka dambe. waxyaabaha aan barno waxa kamid aad iyo aad baxsiga soo wax u baari lahaa sida makaatibta oo kale kombiyuutarada oo kale maktabatu shaamil oo kale sida uu wax u baari lahaa haduu u baahdo mas'aladan inuu baaro oo kale habka uu wax u baari lahaayna waa ardaygaas waa marnaa. waxaan xoog saarnaa taxfiidka iyo inuu ardaygaani wax xifdiyo fanni walba kitaab laga xifdinaa. tusaale marka la joogo oo kale hada fiqiga oo kale kitaabka la yiraahdo zubadka
يا كتاب كاسو أرضه وحفظنا يا دوشة وليبا ونقديمنا ونقديمنا وليبا هبك وحفظنا وليبا هب آدو أرقواي وحلا ليه هاي شطري أوضن بي الساقب اللي بيتك مركو الساقب تحليه شطري هورنا صاب الله كان كذا بينا الشيء على ليه حفظ الأسئلة وكجاري هاي كتاب قسمه أصلا حفظ قف هذا النحو مركل لو تشوف الألفية ابن مالك وأكون بيد أيضا يوليبا لما بيده رحسيسا أصلا وحفظنا مركي مصطلح على تشوفه ألفية السيود حفظنا يا مركي اللي تشوفه وحويان فنيا لا يصفق لامية الأفعال وحفظنا يا فني كسياسا عن أصلا علم علم الرقائق كتاب كهداية الأذكياء أي أرض قدوشة حفظنا يا فني عقيدة كتاب وحفظنا يا مركا فني كس أرض وإنه كتاب كحفظيه واجب ولبا نقضي منها ولبا اللي حجر ونقضي منها marka waxyaabaha aan xooga aad iyo aad dadkuna waxa weeyaan ay u rabaan waxa kamida laqbaha dadka aad ugu baahan yihiin waxa kamida suurada in la baro waxyaabaha aad ugu baahan waxa kamida taxfiidka iyo in mutunta xifdiyaan waxyaabaha baahida aad aan u aragnay kamida waliba waxaan soo wacnaga dadka jaamacadaha ka qalin jabshay oo qaybta shariicada waliba inna soo wacaan waliba waxay aad uga cabanayaan wax istisaarid iyo wax laqbaynta iyo suuraynta iyo taxfiidka marka waxyaabahaas xoog aan saarnaa waana ku faa'iidna ma sha Allah waxaanu aragnay ardayga markii laqbaha la baro oo 3 bilo ama 6 bilo ardaygaas uu joogo waxa la wixii loo akhriyaa waa diyaar wana fahmaya ardaygaas hagaag daawadayaal ugu dambeyn waxa inoo suura galay in aan xog wareysano ardada muassasatul Kaafi waxaana inoo sheegeen in ay ku faraxsan yihiin kamid ahaanshaha ardada u diiwaan gashan muassasatul Kaafi waxay kala xuseen in ay ku taamayaan in ay ka gungaaraan yoolkooda oo ah sidii ay uga aflixi lahaayeen muassasatul Kaafi mustaqbalka dhow. awalan magacaygu waa Axmed Maxamed waxaan kamid ahay ardayda dhigata muassasatul Kaafi muassasada waxaan ku darto waxa kamid ah khaasatan aniga waxa la iska dhigeysanaa casharada ashiiqo markuu ku akhriyo casharka laga tagi maayo oo casharada waa laga dhigeysanaa waxyaabaha kale aan ku darto waxa kamid ah kutubta xifdiska sida alfiyatu ibn Malik 6 mar ayaa horjeedka marka laga reebo 6 mar ayaa laga rabaa in arday walba naqdimiyo waxyaabaha ku darto waxyaabaha kamid ah iyo kutubta tasawufka oo qalbiga daahirnaysa qalbiga jilcinaysa iyo waxyaabaha kale oo muassasada la gooni tahay waxa kamid ah fanniga fiqiga oo meeshii baraatika u baahan oo kale ardayda waa loo baraatikeynaya wareen magacii waa Maxamed Cabdulcasiis Cabdullaahi waxa wax ka bartaa muassasatul Kaafi waxaana kamid ah ardaydii ugu horeeyay ee muassasada dadka lagu bilaabay kamid ah muassasada inta badan waxay daraasadaa culumta sharciga ee xoog saarta iyo waxa kamid ah muassasada waxyaabo ee dheertay muassasooyinka kale kutubta mukhtasaraadka oo xifdiska u baahan oo kale waa la xifdiyaa sida alfiyatu ibn Malik alfiyatu Suyuudi alfiyatu Zubad iyo laamiyatu al-af'aal iyo kutub badan oo maartay xifdis u baahan waa la xifdiyaa waxyaabaha kale muassasooyinka dheerta waxa weeye iyada waqtiyada la soo galay muassasooyinka kale waqtiyada la soo galay tan way kala duwan yihiin tan muassasatul Kaafi waxa la soo galaa halka saac oo subaxnimo ilaa iyo waxa la joogaa 10 saac bar iyo 12 galabnimo lagu gaaraa waxa kale oo muassasadu waxyaabo ay dhigto kamid ah cilmiga tafsiirka sida cilmiga tafsiirka culumta luqadan way dhigtaa sida naxwaha sarfiga iyo caruudka magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Maal Cabdiyaale waxaan kamid ahay ardayda wax ka barata muassasatul Kaafi waxaan meeshaan imaanaa saacada markay ku beegantahay halka saac waxaan ka baxnaa ilaa 12 waxaan ku baranaa meeshaan culum kala duwan waxaan marka rajaynaynaa insha Allah in si nabad ah oo Ilaahay noogu dhameeyo waxbarashada aan ku guda jirno muassasada waxyaabaha aan ku dooranay waxa kamid ah duruusta la qaato oo aan la isku deenin oo la iska dhigeysanayo waxa kale oo muassasada ay muassasooyinka lagu duwan tahay xifdiga kutubta u baahan xifdiga fanni kasta waxa ka xifdinaa hal kitaab funuunta aan barno waxa kamid ah fanniga fiqiga fanniga naxwaha fanniga sarfiga fanniga tasawufka fanniga caqiidada fanniga caruudka iyo luqada carabiga sida loogu hadlo ayaga waa Caasha Xasan waxa ka tirsanahay ardada muassasatul Kaafi maanta waxa noo socda daraasada si qurux badan muassasada waxa ku qaadanaa fanniyaal kala duwan ay kamid tahay siirada iyo fiqiga iyo caqiidada iyo naxwaha ma sha Allah ardada meeshan si fiican cilmiga ugu qaataan
macallimiinta iyo mashaayikhda meeshaan joogana ardayda si fiican ay ugu dadaalaan waxaan rajeynaynaa insha Allah inaan cilmigan ka gaarno meel fiican guud ahaan waxaan intaas ku soo afmeerayaa barnaamijkii booqashada madaarista intaan dib u kulmi doono barnaamijkan mid lacayn ah nabadgelyo